qaladka noocaana ma gashaa she have a new car jumladani way qaldan tahay ma ogaan kartaa qaladkeeda ayadoo saxan qaybta commentiga kusoo qor waa mar kale iyo barnaamijkeenii 1 minute 1 English lesson 1 daqiiqo iyo 1 cashir oo luqadda Englishka markaad luqadda Englishka ka hadlayso waxa uu qof haysto waxaa isticmaalaysaa laba shay midkood have ama has ayaad isticmaalaysaa have waxaa loo isticmaalaa marka uu subjectigaagu ama cidda aad ka hadlayso ay tahay adiga ama you ama aad we isticmaalayso subjectigaadu yahay ama they waxaad isticmaalaysaa have ayaa leedahay I have a new car laakiin markaa subjectigaagu uu yahay he she iyo it waxaad isticmaalaysaa has ayaa isticmaalaysaa marka waxaa leedahay she has a new car marka waxaa qalad she have inaad dhahdida waa qalad weeyaan marka waxaa leedahay she has a new car ayaa leedahay waxaa isnaanaysaa I have you have we have iyo they have waxaa kaloo xasuusnaanaysaa she has he has it has haddaba sidee uga shaqayn karaysaa su-aashani marka magac aad soo gelisid ka waran cabdi aad dhahdid dash a book qaybta commentiga kusoo qor haddii aad danaynayso inaad luqadda ingiliishka sare u qaado waxaan kugu casuumayaa wax ka baro academy oo ah platform aad si raaxa leh luqadda ingiliishka uga baran karayso adigoo raacayo manhaj caalamiya faahfaahinta qaybta commentiga hoose ayaad ka heli doontaa wasalaamu calaykum